hay-adda duulimaadka rayidka ee Soomaaliya ayaa afartii bishan ogolaansho hal maalin siisay diyaaradda nooceedu ahaa E120 oo ku diiwaan gashanayd magaca shirkadda African Express oo daawo iyo qalab kale u siday magaalada Bardaale. Diyaaradda ayaa khadka ay maraysay ahaa Muqdisho, Baydhaba, Bardaale, Muqdisho. Saraakiisha Soomaalidu waxay ii sheegeen in diyaaraddu markii ay u soo dhawaatay degitaanka ay aragtay baabuur kuwa militariga ah oo uu saaran yahay qoriga Zuuga oo ay leeyihiin ciidamada Itoobiya. Baabuurkaasi oo ku sugan dhabbihii ay diyaaraddu ku degi lahayd. Kadibna waxay goobjoogayaashu sheegeen in duuliyuhu uu kor u qaado diyaaradda si uusan ugu dhicin baabuurkaasi si uu isugu dayo inuu mar kale degitaan sameeyo. Hase yeeshee ilbiriqsiyo kadib waxaa dhacday rasaas taasi oo ka dhacaysay baabuurkii ku sugnaa dhabaha diyaaradda oo ka dhacayay qoriga Zuuga. Rasaastaasi oo soo riday diyaaradda sida ay sheegeen goobjoogayaashu. Weydow Cali Xasan waa guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee degmada Bardaale. Horeyna waxa uu guddoomiye uga soo ahaa degmadaasi. Waxa uu maalintaasi ku sugnaa garoonka waxaana uu arkay sida ay wax u dhaceen. diyaaradda meeshii ay ku degi lahayd waxaa la dhigay gaarisiinka oo bantakoor saaran waxaa istiri diyaaraddan baabuurkana may ku dhacdaba erboorka markay soo cagasiyo hadka ayay kor u kacday saciiddii ay kor u kacday gaarisiiya meeshii yaala baa lala eegtay marka 5 cabadood ayaa lagu riyay xabad waa lala cabadii garab martay 4 cabad way ku dhaceen. Markay dhacday kadib ciidamada Itoobiya diyaaradda miyay tageen oo rasaas kala miyay fureen? diyaaradda markii ugu horeysay ee ay timaado Bardaale miyay ahayd diyaaraddaasi? Waxay sheegeen saraakiisha Soomaalidu in ciidamada Itoobiya ay meel dhow ka arkeen diyaaradda. Garoonka ayaa magaalada kaga yaala dhinaca galbeed waxaana diyaaraddu ay ka timid dhinaca waqooyi markii ay isku dayeysay inay degto. ila kale waxay VOA u sheegeen in duuliyuhu uu dhiciseeyay isku daygii hore ee degitaanka garoonka kadib markii uu dhabaha soo galay dameer. Kadib markii isku dayay inuu diyaaradda kor u qaadana uu ku dhawaaday baabuurka ay lahaayeen militariga Itoobiya. Hase yeeshee Weydow Cali Xasan oo goobta ku sugnaa isagu waxa uu sheegay inuusan arkin dameer soo galay dhabaha diyaaradda. فرد بدل باجي مال باور كده دكتور مال ayagii baajiyay meel soo gal karo meesha. ciidamada toogashada geystay waa kuwa Itoobiya sida ay sheegeen saraakiisha Soomaalida oo isugu jira kuwa deegaanka wasiiro iyo waliba kuwa dhinaca gaadiidka hawada ah. saldhigga Bardaale ee ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Itoobiya waxaa sidoo kale ku sugan ciidamo ka socda Itoobiya oo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM. laba sargaal oo mid yahay diblomaasi oo aan la hadlayna waxay ii sheegeen in askariga riday rasaasta uu ka tirsanaa ciidamada Itoobiya aan ka midka ahayn kuwa AMISOM. ila wareed kale waxay ii sheegtay in askarigaas uu ka mid ahaa ciidamo Itoobiyaan oo Bardaale soo gaaray 20 bari ka hor. waxay sheegeen in kolonyada uu la socday askarigaasi ay muddo dheer ku soo jireen dhaxda iyaga oo soo lugeynayay. xilliga diyaaraddu ay ku soo dhawaatana ay gashay cabsi ah inay diyaaraddu doonaysay inay duqayso. arrintaasna waxaa lagu cadeeyay dokumentiyo lagu baahiyay warbaahinta hase yeeshee AMISOM aysan si rasmi ah u xaqiijin jiritaankooda. diyaaraddu halis miyay ku ahayd ciidanka Itoobiya iyo baabuurka Zuuga? oo shaqad diyaaradda yaqaano baabuur uu ku soo degay oo hadda ma ku soo degtay inta soo degay kana ogaado heer markii tijaabada inay jilaayeen loo sheegay inta aan la caddeyn laakiin maamulku waa loo sheegay oo ogaayeen diyaaradda yadda ama ka fasaaday dadaba hadda ka soo degtay badawada ka soo qaaday dadka ku soo socda. haddii haddaba baaritaanka la samaynayo uu xaqiijiyo in askarigaasi aanu ka tirsanayn ciidamada AMISOM waxaa taasi ka iman kara su'aalo dhinaca sharciga ah. inkastoo ciidamada Itoobiya ee AMISOM ka midka ahayni ay Soomaaliya joogeen muddo sanado ah iyagoo ku doodaya inay ku joogaan heshiis laba geesood ah oo ay wada gaareen dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya. inay ku joogaan heshiis labada dawladood ah waxaa sidoo kale sheegay saraakiil Soomaali ah. ciidamada Itoobiya ee aan ka tirsanayn AMISOM ayaa ila wareedyo lagu kalsoon yahay ay ii sheegeen inay 75% ka yihiin ciidamada Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya. Bardaale waxay ka mid tahay 3 magaalo oo ay wada joogaan ciidamo Itoobiyaan oo isugu jira kuwa ka tirsan AMISOM iyo kuwa aan ka tirsanayn.
labada magaalo ee kale waa Buurhakaba iyo Baardheere. qodob kale oo baaritaanku uu eegayo ayaa ah in ciidamada Itoobiya ee Bardaale jooga ay ogaayeen inay diyaaraddu imanayso iyo in kale. mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay ku doodayaan in ciidamada Itoobiya ee jooga Baydhabo ay ahayd inay u sheegaan ciidamadooda jooga Bardaale oo uu wada xukumo taliye keliya. saraakiisha Soomaalidu ma hubaan inay taasi sameeyeen ciidamada Itoobiya, waxayse saraakiisha Soomaalidu hubaan inay u sheegeen saraakiishooda ku sugan magaalada Bardaale ee Soomaalida ah. waa kan Weydow Cali Xasan oo sheegay inuu ka warqabay imaatinka diyaaraddaasi. والله إذا ما يتوقع أنا نسوي الجريمة حقيقة لكن ما هو الله فرحان ما هو الله وجا يا رب يتوقع والله والله لو تقول بلي ترتب الزيارة ويشتى جاءت الزيارة صوتي تفهم وشيء كلام أبو مشاري. waxaa lagu wadaa inuu dhaco baaritaan 3 geesood ah oo ay sameynayaan khubaro ka kala socota Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya, iyadoo sanduuqa madow iyo kan codka duuba ay weli ku jiraan diyaaradda. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa dhawaan iiga warramay baaritaankaasi. waxa la wixii meesha looga baahnaa evidence ahaa meesha ayuu yaalaa. annagana reportigeena waa soo diyaarinay, eyewitnesski waa soo arkay. marka insha Allah tacaala waxaan sugaynaa hadda in labada wadan ee Kenya iyo Itoobiya iyagana nagu soo biiraan aan sameyno baaritaan daahfuran si aan familieskii iyo dowladihii dadkii dhintay Allah u naxariista iyo diyaaradii burburtay intaba aan ula wadaagno wixii dhacay, shilkii dhacay iyo sida uu u dhacay iyo sida looga hortegi karo shilal sidan oo kale ah in ay dhacaan. hogaamiyaasha Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya ayaa la sheegay inuu xiriir dhex maray, isla markaana ay ka wada hadleen dhacdadaasi iyo baaritaanka lagu sameynayo, iyagoo sidoo kale iskaga tacsiyeeyay dadkii ku dhintay shilkaasi. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan ha iloobin inaad subscribe aad tiraahdo. haddii se aad tahay macmiil soo noqday ha iloobin in aad gambaleelka aad furato si aad ula socoto waxyaabaha aanu soo gelino channelkan. haddii aad u aragto in muuqaalada noocan oo kale ah aad wax ka faa'iideyso like saar si aan u aragno cadadda tirada daneynaysa. mahadsanid. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan ha iloobin inaad subscribe aad tiraahdo. haddii se aad tahay macmiil soo noqday ha iloobin in aad gambaleelka aad furato si aad ula socoto waxyaabaha aanu soo gelino channelkan. haddii aad u aragto in muuqaalada noocan oo kale ah aad wax ka faa'iideyso like saar si aan u aragno cadadda tirada daneynaysa. mahadsanid. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan ha iloobin inaad subscribe aad tiraahdo. haddii se aad tahay macmiil soo noqday ha iloobin in aad gambaleelka aad furato si aad ula socoto waxyaabaha aanu soo gelino channelkan. haddii aad u aragto in muuqaalada noocan oo kale ah aad wax ka faa'iideyso like saar si aan u aragno cadadda tirada daneynaysa. mahadsanid.